Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wariyaan nation meel kasta aad joogtaan waxaan idin rajaynayaa caafimaad cimri dheer aan cibaado suban waa cali aadan xaaji oo idinku soo laabtay maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo caafimaadka maskaxda ama mental health waxa loo yaqaan awal waxaa la dhihi jiray mental illness laakiin hadda dadka waxay isticmaalaan mental health expert ama dadka ku takhasusay maaragtay caafimaadka maskaxda waxay isticmaalaan caafimaadka maskaxda ma la dhahaa xanuunka maskaxda hadda lama isticmaalo inta badan because hadda u fiirsata erayada midna waa mid wanaag sheegayo caafimaad midna waa mid xumaan sheegayo oo negative ah oo dhahayo caafimaad xumo ama xumaantii caafimaad ka hadlayo marka waxaan rabaa wax yar inaan ka taataabto mental healthiga waxyaabaha lagu garto sida looga hortagi karo sida loo dabiibi karo ama loo daawey karo saa ognahay qofka bini aadanka maskaxdiisa waa mashiinka jirka inta kala wado qofka hadduu maskaxda ka xanuunsan yahay xanuunka jirkiisana jirkiina xanuun buu ka leeyahay qofka hadduu maskaxda ka xanuunsan yahay wax ma qabsan karo ama waxuu qabsan jiray daciif waa 100% awoodiisa iyo enerjigiisa iyo xooggiisa iyo caqligiisa meesha ma joogo marka waxaan rabaa inaan fiirisid qofka caafimaadka qabo maskaxday ka bilaabataa marka qofka maskaxdiisa caafimaad qabo jirkiisana wuu raacaa because jirkan lagu sheegaa waa lafo iyo biyo iyo hilib marka laakiin maskaxdu ilaahay wuxuu isugu geeyay wixii awood ahay qofka markuu kula hadlayo maskaxdu kala hadlaa markuu ku jawaabayo su'aal maskaxdu kugu jawaaba markuu maaragtay fikirayo maskaxdu ka fikiraa markuu kula sheekeysanayo maskaxdu kala sheekeystaa marka mental healthiga ama maaragtay caafimaadka maskaxda laba nooca inta badan oo qofka bini aadan ku imaado oo ku xanuunsada ama maaragtay maskaxda wax kaga gaartaa mid waxaa la dhahaa generic oo maaragtay waxaad ka dhaxashay dadkii adiga ku dhalay iyo wixii sii dhalay oo maaragtay dhaxal uu kugu yimid midna environmental la dhahaa meesha aad ku nooshahay iyo saa u nooshahay iyo waxyaabaha hamigeysanaysid iyo waxyaabaha aad indhahaada qabanayaan iyo waxyaabaha aad meesha aad degan tahay aad maaragtay environmental kaasaa asigana keeno dhaawaca oo maskaxda xanuunka maskaxda caafimaad darrada ku dhacdo marka inta badan dadka oo xanuunka maskaxda ka sheekeeya ama caafimaadka maskaxda ka hadlo saddex area ay waxay geliyaan qofka marka diagnosis lagu sameynayo mid waxay dhahaan depressive oo qofkii depression waxaa la dhahaa oo waxay ka timid erey oo Greek ah oo depressive macnaha oo hoos u riix camal marka qofkii down ama qofkii madluun iska ah oo maaragtay enerjigiisa aad u hooseeyo mid kalena wax disorder la dhahaa jiro disorderada waa badan yihiin marka qofka waxaa la dhihi karaa disorder macnaha disorder waxaa waaye waxba wixii sidii habkii loogu talagalay jirkaada inuu u shaqeeyo uusan u shaqaynayn disorderada waxaa ka mid ah hadda fear of phobia waxaa la dhahaa qofka inuu ka cabsado bulshaduu la degan yahay oo kale inuu ka cabsado dad waxaa jiro oo banaanka aan u bixi karin oo banaanka ka cabsado dad waxaa jiro xanuunad badan dhibaatooyin lagu soo sameeyay ama maaragtay gurigooda ha loogu soo sameeyo ama bulshada ha ku sameyso oo qabo oo PTSD la dhahaa oo maaragtay xanuunkaas qofkii wixii qalbi lagu soo sameeyay yaraantiisa ama markasta ka fikiraa oo macnaha dhibaato badan u keento oo xanuun aan ka harin buu ku noqdaa mid kalena waxaa jiro la dhahayo maxaa la dhahaa ii sheeg psychosis psychosiskana asna waa nooc kale oo xanuunka maskaxda xanuunka maskaxda ka mid ah
oo maaragtay wuxuu leeyahay noocyo badan uu leeyahay manic kuwa la dhahaa nooc la dhahaa jiro schizophrenic kuwa la dhahaa jiro bipolar qof wax la dhahaa jiro oo maaragtay qofka maaragtay wax delusion ama waxa oo qalbigiisa adduunka dadka kale aysan arkayn oo arka waxyaabo hallucination oo sameynaa qalbigiisa waxyaabo dadka kale aysan ka arki karin oo ka sheekajina qalbigiisa soo galayo marka qofkii wixii runta ahayd oo lagu noolay nolosha lagu noolay ma u jeediyo nolol kale oo arkaya marka kan hadda uba cudurrada maaragtay marka maskaxda dhibaatadeeda laga sheekeynayo waxa ugu badan dadka ay ka hadlaan waa depressionka ama dadka oo madluunka ah oo aad maaragtay energygooda uusan joogin meesha oo ama energygooda liito iska ooynaya xanuunadiisa badan tahay maxaa la dhahaa 24 saac qofkii ama uu complain garaynaya oo macnaha uu dacwo joogta oo wada ama maaragtay dadkii uu la hadli jiray oo ka goostay ama asiga oo is eedeynayo is leeyahay maaragtay adiga qaladkan sameeyay ee sababta aad horumar u gaari laadahay adaan saas ahayn waxyaabo badan oo qofka oo ku fikira marka waxyaabaha ugu horeeya oo calaamadaha lagu karto waxaa waaye qofka soo u dhaqmi jiray ilaa qofka aad la degan tahay ama aad walaalaha tihiin ama aad nolol qaybsataan ama maaragtay saaxiib aad tihiin ama bulsho aad tihiin soo u dhaqmo waa la socotaa qofka dhaqankiisa isbedelayo oo maaragtay waxaa dhici karta inuu qofkii uusan qolkii kasoo baxayn qofkii uu ooynaya iska arkaysa qofkii maaragtay iska xanaaqsan oo adan waxba dhihin hataa uu iska xanaaqay qofkii oo maaragtay dhibaatadii maaragtay wax kastoo aan macno lahayn hataa oo wax weyn markii hore uusan u arki jirin hadda wax weynay la noqonaysaa marka heerkaas camal ee gaarto qofka annaga dhan bini aadanka dhan waa aragtay maalin kasta waxaa la dhahaa stressaan ahaayo saan ahaay maxaa la dhahaa isheeg waa soo marnaa macnaha inuu mar energygaada oo liito oo daciif oo yahay aadan rabin inaadan hadlin oo ama aadan farxaddii badneed lagugu ogaay aadan haysan wayna soo wada martaa laakiin marka clinically maaragtay caafimaad ahaan qofka marka maaragtay la siinayo diagnosiska waa inuu at least qofkaas 2 week ilaa 3 week ilaa 1 bil oo noloshaas ku jira oo saas daciif oo iska dhibaataysan yahay iska ooynayo oo maaragtay dadkii uusan arki karin ama uu iska xanaaqsan yahay ama markaa ku aragtid 1 bil oo sheekadaas socoto qofkaas camal diagnosis la siiyaa oo maaragtay depression inuu qabo marka depressionka waxyaabo badan lagu daaweeyaa daawada oo ugu caansan oo depressionka dadka la siiyo waxaa la dhahaa SSR inhibitor marka ayadana waxay ka timid selective serotonin uptake inhibitor waxa la dhahaa waaye marka waxaa waaye maskaxda bini aadanka labada dheecaan oo ama oo maaragtay unugyada isdhaafo oo signalska iyo sameeya maskaxdeena oo informationka iska gudbiyo labo hormone ama labo maaragtay dheecaan ee aad u isticmaalaan mid waxaa la dhahaa serotonin midka kalena waxaa la dhahaa dopamine waxaa la dhahaa serotoninkan marka qofka hadduu low ka yahay weli lama hubo because dhibka jiro maaragtay caafimaadka maskaxda waa waxa ugu adag oo jirka meesha ugu adag oo la daaweeyo ama diagnosis lagu sameeyo waay marka hadda culimo dadka badan oo research cilmi baaris badan oo lagu sameeyay waxay ogaadeen in maaragtay qofka lowga ku ah serotoninkaada hormonkaas hadduu low oo ka yar yahay maaragtay inuu qofkii maaragtay energygiisana oo hoos u dhacayo marka daawadaas qofka la siiyaa oo si macnaha serotoninkii hoos u dhacsaneed levelkeeda kor loo soo qaado marka dhibka ugu badan oo daaweynta mental health oo leeyahayna waxaa waaye waa inaad talagaraysaa qofkii waa inaad ku fiirisaa daawooyin kala duwan numberka ama qiyaasta dosageka kala duwan si macnaha loo helo wixii sixi lahaa levelkaaseeto aaday marka u adag tahay mar badan bilalay qaadataa qofka inuu normalkiis kusoo laabto wadamadan hadda westernka aan joogno depression medicationka waa number 1 daawada ugu badan oo la gada waa billions dollars lagu gadaa dad badan oo shaqeeyo tay wada xirno xafiisyada degan way wada qaataan marka taas marka ay
taas marka waa very important. Dopamine-kana waa asigana sidoo kaleeto. Dopamine-kana waa another maaragtay hormone ama oo waxyaabaha oo markii aad qof jeclaatid, marka shaqo aad qabatay, paycheck weyn kaaga soo dhaca, marka wax gifti aad ugu farxday lagu siiyo, waxyaabaha farxaddaas aan zaa'idka ah kaa keenayo oo caadiga aan ahayn kaa keenayo, dopamine-kia cirka tagaayo. marka waxyaabaha dadka oo marka hadda oo balwada lahoo kale, waxyaabahaas oo kale waa sameeyaan. Qofka markuu jaadka cuno kale, dopamine-kii oo qofka jaadka kor u qaadaya, marka qofkii happy uu noqonaa, wuxuu noqonaa maxaa la dhahaa isheeg high uu noqonaa, happy uu ku yahay meeshuu joogo, because bahashii farxaddii cirkaas marayso. marka oo jaadka jirkiisa ka baxana bahashii low soo noqonayso, markaasoo haddana next day maalintii kale inuu haysto inuu helo waa wixii oo high ka dhigi lahay. dadka daraaga qaadka saas waa, dadka qamaarka dheela saas waa, dadka maaragtay muqaadaraadyada kala duwan qaata saas waaye. bahashaasayta marka dopamine-kana marka dhibkeeda waxay leedahay jirka produce gareeya bini'aadanka, waa wax ilaahay noo sameeyey oo annaga aan abuurin. laakiin markaad ku samaysid waxyaabahan oo altering-ka la dhahayo, ama macnaha daawo ama kaniini qaada, ama muqaadaraad qaada, ama qamaar dheel, ama wax sameey, aad high ka dhigtid, maalinta ku xigta marka wuxuu kasii rabaa inaad qiyaastii kasii badisid, si oo macnaha high usii bato. qiyaasta shalay cuni jirtay birito sideedii ma noqonayso, waa inaad qiyaasta sii badisaa. marka waxyaabaha qofka marka maalin kasta muqaadaraadka dadka isticmaala, waxyaabay u isticmaalaan, waxyaabaha ugu badan saas waay. oo marka arkaysa qof maalin kasta alcohol cabaya, ama qofkaasna jaad cunaya, ama qof maalin kasta xashiishad cabaya, ama waxaasuu raadinaya inuu high-gu shalay ahay oo kasii badnaado. marka bulsho ahaan Soomaalida hadda dhibaatada wadanka gudihiisa jirto aaday u badan tahay. dadkii dagaalo sokeeyo oo 30 sano aana soo maray, maaragtay wasaarad caafimaad oo dadkii xanuunkooda macnaha oo maskaxda xanuunkiisa maaragtay mas-uulka noqon karta, ama private-yaha hataa clinical private oo maaragtay qualify ah oo shaqadii si fiican u yaqaano oo wixii qaban karana ma jiraan. marka dadkii normalkii xanuunkii oo qofkii iskala socona, normal life ku noqonaysaa, because hadda fiiri qiyaasta kasoo qaad hadda magaaladan Ingiriiska, magaaladan London, wadankii cariga Ingiriiska aan joogo, hadday maanta meel qarax ka dhaco oo 100 qof ay ku dhimato, adduunka dhanaa ka sheekeynaa, qof kastaa la yaabayo. waxaa waaye dadkii hataa meeshii qaraxa maalin kasta ka dhacay oo joogay ka sheekeynaa, ladna qaraxa ka dhacay oo se u dhac, because baseline wax la dhaha jiro adduunka. qofka xamar joogo waxaa laga yaabaa inuu maalintii 2 qarax 3 qarax oo arko, wixii marka normal ay u noqonaysaa. waxaa maalintii koowaad qofka inuu argagaxa laga yaabaa. hadda ani xamar tago oo aan wixii maalintii koowaad qarax aan arko, waan argagaxayaa, waa yaabayaa, waxaan leeyahay warsee wax u jiraan. haddaan sii joogo oo mid dhaco mid kala dhaca, maskaxdeedu way la qabsanaysaa, baseline samaynaysaa. so waxaa dhici karto jirkii oo kala daadaasan, oo lug meel taalo iyo dhiig meel yaala, inaa agmar oo danteeda ka wato oo kasoo qadeeyo oo casho kasoo cuno. laakiin qof aan waxaas weligiis arkin, hadda markii igu horeysa daa arka wax dhacay oo qarax ah, inaan baxa oo qada ma soo cuni karo. waxii waa ka fikiraysaa, dhiiggii arkaysaa, jirkii kala daadsanaya arkaysaa. Soomaalina maasha Allah dadaa soo aruurina, subhanallah, like dadkii isku soo aruurina, hilibkooda isku keenaya, gurigiisa inuu tago qada ka cunaa dhici karto. qofkaasayta maskaxdiisa marka baseline-kii la qabsatay, wixii normalka asi maskaxda bini'aadanka ilaahay wuxuu u sameeyey mucjiso inuu maaragtay wax kasta adjust gareyso, oo maaragtay levelka qofkiisa ay la sinaato. marka maaragtay hadda inaan soo gabagabeeyaan rabaa. waxaan wax oo 1 cashir ama 2 cashir ama 3 cashir lagu soo gabagabeey kara ma aha. marka waxaan ka sheekeynaa cashirada soo socda insha Allah, sida qofka depressionka ku aragtid, sida uu caawi lahayd, waxyaabihii aad qaba lahayd. disorderada kalena waa ka sheekeynaa, iyo psychosis-ka oo kaleeto hadduu ilaahay yiraahdo, iyo ayagana sida maaragtay wax looga qaba lahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak. ilaahay caafimaad buuxahana wada siiya maskaxda iyo jirka iyo qalbiga, maaragtay iimaanka. because mental health-ga marka qofka la sharxaayo, waxaa la dhahaa qofka mental health-giisa wuxuu kaamil yahay markuu ilaahay siiyo awood oo maaragtay iimaankiisa iyo dareenkiisa oo ku controli karo.
fiiri mental healthiga waa awood qofka iimaankiisa iyo dareenkiisa ku kala controli karo oo dhibaatada soo marto iyo xumaanta soo martana oo maaragtay manage garay kara maskaxdiisa ee maaragtay manage garay karta ayadoon maaragtay jibin maskaxda jibin marka ilaahay hana siiyo iimaankaas iyo maaragtay iyo awoodda aan ku controlno iimaankeena iyo dareenkeena insha allah midda kaleeto wax yar aan mental health sidiisaba dhibaatada jirta waxaa waaye waa wax stressa keeno kasoo qaad weel oo biyo ku shubmayaan weelka markuu buuxsamo biyihii way daadanayaan haddaa laakiin u samayso tubo laga furo hoos oo biyaha kor ka soo socdo hoosna ay ka furan yihiin weelkaas waxaa laga yaabaa weligiis inuusan buuxsamin laakiin qiyaastii waxay ku xiran tahay biyihii soo galaayo iyo biyihii tubada ka baxayo iyo biyihii kor ka imaanayo ma isleeyihiin yaa badan laakiin hadday tubo leedahay tubadaas hadday weyn tahay hoos ka baxayso biyahaas kor ka imaanana hoosay ka baxaan qofkaas weligiis weelkiis ma buuxsamayo laakiin haddoo weelkii oo tubadii hoos ku jirta ay biyo yar ay daadinayso biyo yar ay saas u daadinayso biyo badanna kor ka soo baxaan soo u joogo ugu dambeyn biyahaas koray u baxaan hadduusan tubo lahayn meeshina iska dhaaf markuu weelkii buuxsama biyihii dhan bannaankay u baxaan marka intaas ogaa weligaa isku day inaad lahaatid tubo hoos maaragtay weyn aad wixii stress iyo kusoo maray maanta aad kaga bixi kartid dadka oo diinta yaqaano oo qur-aanka maasha allah niyo culum cilmi baari badanaa la sameeyey dadka isla nool community ahaan iyo dadka diinta lebo waa xanuunkaasayto aad ugu yaryahay marka ilaahay maaragtay ha naga dhigo kuwii xanuunkaasayto maaragtay naga qaado casharada soo socdana waa sii continue garay karaa waa sii wadaya insha allah sidii maaragtay waxaan ugu sii wada hadlay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu